asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaashayda sharafta leh ee ku xihan janalkayga. nebiyullaahi yaxya calayhi salaam qisadiisa waxay bilaabatay markii aabbihiisa oo ahaa nebi zakariye calayhi salaam uu alle subxaanahu watacaala ka bariyey inuu wiil ku irsaaqo iyadoo ay waayeeloobeen isaga iyo xaaskiisaba. markaas buu alle subxaanahu watacaala ka aqbalay ducadiisa oo ku irsaaqay yaxya calayhi salaam iyadoo isaga iyo xaaskiisuba ay wada waayeeloobeen oo weliba xaaskiisu ay ahaan jirtay mid aanan waxba dhalin. nebi yaxya calayhi salaam dhalashadiisa ayaaba waxay ahayd mid mucjiso ah. allena subxaanahu watacaala wuxuu yidhi: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. zakariyow waxaan kuugu bishaaraynaynaa wiil lagu magacaabo yaxya kaasoo horay uusan u dhalanin ilmo la mid ah. nebi yaxya calayhi salaam wuxuu ilmo habreed la ahaa nebi ciise calayhi salaam. labadoodaba wuxuu alle subxaanahu watacaala isla soo diray hal casri ama hal zaman gudihiisa. wuxuu alle subxaanahu watacaala nebi yaxye nebinimada siiyey isagoo aad u yar, wuxuuna ku amray inuu towraad gaarsiiyo qowmkiisa oo uu dadka ugu soo yeero in ay caabudaan alle keligiisa subxaanahu watacaala. wuuna karaameeyey, wuxuuna ka dhigay mid aad u darajo sarreeya. isaga ayaana magaca u bixiyey oo sayid ka dhigay ilaa iyo yaraantiisii. wuxuuna nebi yaxya calayhi salaam ahaa mid ay si aad ah u jeclaayeen qowmkiisa iyo dhammaan makhluuqaadka. wuxuuna si deggan oo naxariis leh ugu yeeri jiray cibaadada alle subxaanahu watacaala. markaas bay dhammaantooda wada jeclaadeen oo dacwadiisana qaateen. wuxuuna calayhi salaam noloshiisa ku dhammaystay cibaado iyo inuu dadka ugu soo yeero alle xaggiisa subxaanahu watacaala. wuxuuna ahaan jiray mid aad u duco iyo cibaado badan. wuxuuna ahaa mid aad u khushuuc badan oo alle isku dulleeya subxaanahu watacaala. hamigiisa keliya ee uu nolosha ka lahaana wuxuu ahaa raalligelinta alle subxaanahu watacaala iyo badbaadinta addoommadiisa. waxaa la sheegaa in nebi ciise calayhi salaam uu nebi yaxye u diray bilaadu shaam si uu alle xaggiisa ugu soo yeero subxaanahu watacaala. markaas buu dacwada ku faafiyey ilaa dhammaantooda ay ka wada barteen. waxaana xilligaas shaam haystay boqor aad u awood badnaa. boqorkan ayaa waxaa gurigiisa ku noolaan jirtay oo uu mas-uul ka ahaa gabar uu dhalay walaalkiisa, taasoo uu aad u jeclaaday oo uu caashaqay ilaa uu ka damcay inuu guursado. wuxuuna ogaa in guurkeedu uusan u bannaanayn maxaa yeelay wuxuu alle subxaanahu watacaala ooga xarrimay towraadka. maalin maalmaha ka mid ah ayuu boqorkan u yeedhay nebi yaxye calayhi salaam isagoo doonayay inuu u iftoodo inuu guursan karo gabadha uu dhalay walaalkiisa. kadibna wuxuu nebi yaxye calayhi salaam ugu jawaabay kuuma bannaana. balse jacaylka uu boqorkan u qaaday gabadhan ayaa dhex degay wadnihiisa oo kama aysan go'in qalbigiisa. waxayna ahayd gabar aad u shar badan oo aad u dhagar badan. markii ay ogaatay wixii dhacay ayay dhagar u maleegtay nebi yaxye calayhi salaam. wuxuu boqorkan lahaan jiray caado uu samayn jiray maalin walba, taasoo ahayd inuu maalin walba gabadhan u oggolaan jiray in ay ka dalbato hal shay. kadibna wuxuu u fulin jiray wixii ay dalbato waxay ahaadaanba. markii gabadhan hooyadeeda ay ogaatay wixii uu sameeyey nebi yaxye calayhi salaam ayay gabadheeda ku tidhi: markaad u tagto boqorka oo uu ku weydiiyo waxaad doonayso, waxaad ku tidhaahdaa waxaan doonayaa in la ii gowraco yaxya bin zakariya.
markii ay gabadhu u tagtay boqorka oo uu weydiiyey waxa ay doonayso ayay ku tidhi, waxaan u baahanahay in la ii gowraco Yaxyaa ibnu Zakariya. Markaas buu ku yidhi, waxaan taas ahayn i weydiiso. Waxay tidhi, wax kale kuma weydiisanayo. Markii ay ka biyo diiday in ay ka beddesho dalabkeeda oo ay ka jeesatay jacaylka uu u qabay gabadhan awgeeda, wuxuu nebi Yaxye ugu soo yeeray qasrigiisa. Kadibna wuxuu dalbaday in loo keeno weel aad u weyn. Markii weelka loo keenay ayuu ciidankiisa ku amray in ay gowracaan nebi Yaxye calayhi salaam oo ay dhiiggiisana weelka u dhigaan. Balse dhibic ka mid ah dhiiggiisa ayaa dhulka ku dhacday. Markaas buu nebi Yaxye calayhi salaam dhiiggiisa isku beddelay mid karkaraya oo taagan oo aanan degaynin, ilaa uu Alle subxaanahu wa tacaala boqorkan iyo ahalkiisaba ku salliday boqor kale oo duulaan ku soo qaaday. Waxaana la sheegaa in boqorkan ku duulay magaciisa la odhan jiray Bakhtanasar, wuxuuna u geystay xasuuq aad u daran. Kadibna waxaa boqorkan u timid haweenay duq ahayd oo ka mid ahayd banu Israa'iil. Markaas bay tustay meeshii uu yaallay dhiiggii karkarayay. Wuxuu yidhi, wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala qalbigiisa ku ilhaamiyey oo u geliyey in uu dhiiggaas korkiisa ku daadiyo dadkii boqorka raacsanaa dhiiggooda ilaa uu dhiiggu ka dego. Markaas buu wuxuu halkaas ku dilay 70,000 oo qofood oo ka mid ahaa boqorkaas la dilay dadkii raacsanaa ilaa uu dhiiggu ka degay. Riwaayad kale ayaa sheegaysa in gabadhaani ay boqorka ka dalbatay in uu u keeno nebi Yaxye calayhi salaam madaxiisa. Wuxuu yidhi, markaas buu madaxiisa intuu qaaday dhigay horteeda. Markii ay galabaysteen ayuu Alle subxaanahu wa tacaala dhulka la jaray boqorkaas iyo ahalkiisa iyo wixii ka ag dhowaa dhammaantooda, isaga oo oga aarguday nebigiisa, oo iyagana ku ciqaabay ka hor inta uusan ku sallidin boqorkan ku duulay oo qoomkiisana laayay. Nebi Yaxye calayhi salaam wuxuu maqaam sare ku leeyahay Alle agtiisa subxaanahu wa tacaala. Waxaana arrintaas dhowr meelood ku sheegay nebigeena Muxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. Ibnu Wahab ayaa waxaa laga wariyey in uu yidhi, rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa maalin ku soo baxay saxaabadiisa iyagoo ka sheekaysanayay fadliga ay leeyihiin ambiyada. Midkood baa wuxuu yidhi, Nebi Muuse calayhi salaam waa kaliimullah ama wuxuu la hadlay Alle subxaanahu wa tacaala. Mid kalaa wuxuu yidhi, Nebi Ciise calayhi salaam waa ruuxullaahi wa kalimatuh. Mid kalaa yidhi, Nebi Ibraahim calayhi salaam waa khaliilullah. Iyagoo arrintaas ka sheekaysanaya ayuu nebigu sallallahu calayhi wasallam ku yidhi, aaway shahiidkii uu dhalay shahiidku oo xeran jiray maqaarka oo geedahana cuni jiray isagoo dembi iska ilaalinaya. Ibnu Wahab ayaa yidhi, wuxuu ula jeeday Yaxyaa ibnu Zakariya calayhi salaam. Sidoo kale waxaa Ibnu Cabbaas laga wariyey in uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam yidhi, ma jiro qof ka mid ah carruurtii Aadam ilaa wuxuu sameeyey khalad ama wuxuu ku hamiyey in uu sameeyo, markii laga reebo Yaxyaa binu Zakariya. Qofna uma bannaana in uu yidhaahdo anaa ka khayr badan Yuunus ibnu Muta. Waxaan filayaa inaad ka wada faa'iidaysateen muuqaalkan. Haddii aad ka faa'iidaysatay, fadlan ha iloobin inaad like saarto oo aad u sii sheer garayso asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna, fadlan ha iloobin channelka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirigeliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Hana iloobina inaad aragtiyadiina noogu reebtaan qaybta hoose ee commentiska. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.